diiqii alla hubay ku yimaadaan booyad soo barmuudayso mar horena rasaas bay la dhaceen booyadii oo way galgalooliyeen iyadoo xagga tuulo samakaab iyo ari cadeeya ka timid booyadii dadka biyaha siday waxba rasaas la dhacay oo ay rasaas la dhaceen ciidamada Soomaaliland ciidamada Soomaaliland baa la dhacay way galgalooliyeen ka bacdina naguma soo noqon assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد يا ماشي كسالسيد. مقعد يا ماشي أنا كسال مقعد ومحمد يوسف محمود جميع كبال كحرجة بانكسو هالله. كبال كحرجة ضد بدن بانكرنا كبال كحرجة حقوق يلا واس حجازه. كبال كحرجة وحقوق يلا قلبات بوكهجة مقالة الله سعنود 8 كيلومتر ووتشرا ثلاثة مكابي عاري عدي يكسر ريا. bal ka waran xaaladda deegaanka hadda waa sidee halkaas waa halka colaaduhu ay ka socdaan oo furinta ah ee galbeedka bal hadda ka waran xaaladda deegaanku runtii dad badan baa ku soo qaxay magaaladana 18 kiiloomitir bay u jirtaa ama gaari ha noqdo ama lug ha noqoto oo dadka wixii dan yar haayo dee matal waayayba wuxuu qarash ku soo qaxay marka deegaanku sidii ay u timid ay waxaan u dhaceen 4 bilood wax soo gaaray ma jiraan biyo marba waxa soo gaaray qoyskii 67 qoys oo qoyskii yahay 2 tanag iyo caagad marka wax kale oo hadeer soo gaaray oo u yimid ma jiraan dadkiina sidii buu joogaa ama baraka ha noqdo ama meesha markii horeba baraka ahayd oo abaarihii sanadkii hore dadka lagu xareeyay ha noqotee sax marka sidaas weeye halka ma dad fara badan baa ku soo barakacay oo barakacyaal fara badan baa halka ka buuxa oo deegaanka Kabaalka iyo magaalada Kabaalka markii hore wuxuu ahaa dadku 450 oo ahaa dadkii abaarihii haddana dad 200 iyo siyaada baa ku soo barakacay oo jooga oo yimid oo caruur iyo maato iyo wax walba leh riyaan waayeel wax walba leh marka waxa jeer nafaqa ama ha noqoto ama nooc kasta caafimaad ha noqoto ama taakulayn kale ha noqoto wax soo gaaray ma jiraan hal deegaankaas Kabaalka iyo area-daas waxay ahaayeen meelaha dagaalada ay galbeedku aad ka uga dhacaan dadkii halkaas oo kama barakicin mar hore dadkii Kabaalku dagaalku hadda rasaasti waanu maqlaynaa 18 kiiloomitir bay noo jirtaa waa maqlaynaa dadkuna waa meesha kaliya magaalada ba ay yimaadeen oo aruuri baa tuurta lagaga soo qaatay magaalada Laascaanood ama Bataashi ha noqoto nooc walba ha noqotee marka nolosha dhabta hadda magaaladu waa sidee xaaladoodu dadku say u nool yihiin haddaan meesha nololba jirin say u nooshin wallaahi dadku way iska joogaa ehel wax u keena maahan oo marmar wax ku soo tuura maahan waxayada samafala oo soo gaaray ilaa iyo hadda gacan kuma hayno waan gartay bal ka waran biyaha iyo caafimaadka iyo arrimaha bulshada dadku balas maxay xaaladoodu waa sidee hadda maxay biyaha horta 4 barkado horta meeshu waa meel iska didibo oo aan dhul madax lahayn meel yaro madax jirta 4 baraagood baa ka qodan 4 baraagood foostadii waa $3 weeye waqtiga roobku daayo biyo kale meel kale lagama helo wadooyinku way ka xireen awal tuulo samakaab iyo ari cadeeya xaggeeda iyo meelaha ay ka iman jireen biyuhu haddana dhulkaasi way ka xiran yihiin oo waa xiran yihiin oo wax biyaha diiqii alla hubay ku yimaadaan booyad soo barmuudayso mar horena rasaas bay la dhaceen booyadii oo way galgalooliyeen iyadoo xagga tuulo samakaab iyo ari cadeeya ka timid booyadii dadka biyaha siday waxba rasaas la dhacay oo ay rasaas la dhaceen ciidamada Soomaaliland ciidamada Soomaaliland baa la dhacay way galgalooliyeen ka bacdina naguma soo noqon marka wax gargaar oo idin soo gaaray sida kale ma jiraan oo halka idinku yimi dadka halka ku nool ma jiraan wax yaraatay wax gargaar oo na soo gaaray ilaa iyo hadda gacan kuma hayno
gobolka iyo meel kastana waa la hadalay dee gobolkii waa lagu kala qaxay oo ciidan aloogan iyo waxaa jooga iyo guddiyo maamulaya marka haba yaraatee wax soo gaaray ma jiraan maxaa dadka ay ku dhageysanaya Soomaalida iyo ilaahay baa deeqda bixiyay aad halkan fariin u marinaysaa waxaan u marinayaa dadka waxalaala wixii islaama iyo wixii muslimiina iyo hay'adaha samafalku inay soo taakuleeyaan dadka jooga kabaalka hargaga oo ku magac dheer kalcad bayna la yiraahdaa kabaalka hargagayna ku magac dheer tahay hargagana dad badan baa yaqaan oo hargaga waa meeshii la oran jiray waxaa joogi jirtay dhagdheer baa joogi jirtay buugaagtoo dhan way ku jirtaa marka waxaan oran lahaa dadkaas la soo taakuleeyo waxalaala wixii muslimiina wixii islaama hay'adaha caalamiga ah dhammaantood aad baan ku salaamayaa adeer waa ku salaamayaa insha Allah cid baa kugu dhow Soomaha idib cid kugu dhow adigu ninun baa igu dhow cid kale kuma dhawa idib walaale waa magaca ku bilow walaal waa jaamac faarax dalbar jaamac haye bal ka waran odayga xaaladiisa oo noo waramay bal maxaa ku siyaadinaysaa adigu walaalow waa sida guddoomiyuhu idin sheegay xaaladda magaalada tuuladu waa sida odaygu u sheegay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii magaalada Laascaanood maatada lugta kaga soo saaray maalintii koobaad dagaalka ku qabsaday halkanna waxaanu markii hore u soo aadnay dhawaanshaha meesha u dhaweyd iyo xabadoo socotay daraadeed baanu lug ku soo gaadhnay adigu rafaad badan kadib iyo lug fara badan aan loo maalmood iyo habeen soo soconay waanu soo gaadhnay markii dambe ma garatay waa gartay haddii aanu meeshii nimidna muddo markaanu wax dhowranay oo wax la isweydiinayay in dadka ay u yimaadaan cid maatada caawiso oo ama samafal u samaysa ama gargaar degdega la soo gaadha adigu waxba taasi ma hirgelin ma garatay waa gartay saadaradeed ayaanu markaa waxaanu qaadanay go'aan ah inaanu bal aanu social media iyo warbaahintii caalamka aanu dadkii muslimiinta ah iyo wixii hay'ad samafal aanu u gudbino oo aanu adigana saasaan kula soo xidhiidhnay ma garatay waa mahadsantihiin warka insha Allah waa gudbinayaa waxaan khayr baydin rajeenayaa ilaahayna wuxuu yiri in Allah maca sabriin kuwa sabra waa jecelahay wala guuleysan doona insha Allah niyada khayr u sheega aad salaamaya waa sax walaal insha Allah anagu khayr baan ku rajeenayaa waa salaamati salaam alaykum السلام